kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasheena qiimaha loo meel joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo ee caawa iyo dunida oo aan kusoo qaadano inta badan wararka ugu dambeeyay ee akhbaaraadka caalamka waxa quseeya dadka Soomaalida geeska Afrika arimahan ka taagan bariga dhexe iyo isbedelada waaweyn ee ka socda wadamada Afrika isbedelka siyaasadeed ee ka bilowday wadanka Burkina Faso iyo midka hogaamineed ayaan barnaamijkan kusoo qaadan doonaa kadib markii uu soo ifbaxay Ibrahim Traoré afgembigii militarina uu ku qabsaday talada Burkina Faso 3 September 2022 caalamka intiisa badan arintaasi kuma mashquulin laakiin waxyaabihii dhacay kadib waxay noqdeen kuwa aan caadi ahayn isagoo 34 jira ayuu si degdeg ah dalka uga saaray ciidamada Faransiiska xiray warbaahinadii reer galbeedka wuxuuna caawimo militari ka dalbaday Ruushka taasi oo muujisay isbedel weyn oo ku yimid siyaasadda dibadda ee wadanka Burkina Faso waxaan halkan kusoo qaadan doonaa ilaa dhowr qodob oo aan u aragno inay yihiin kuwo waaweyn oo isbedel weyn ka sameeyay wadankan Burkina Faso iyo dadaalada halyeynimo ee uu sameeyay Ibrahim Traoré oo muddo dheer ka shaqeynayay militariga wadankaas markii dambana noqday halyey u soo baxay wadamada Afrika loona baahan yahay hogaamiyaashooda inay ku daydaan dhalinyaro badan oo galbeedka Afrika ayaa u arkay Ibrahim Traoré geesi u istaagay xorriyadda Afrika khudbadihiisu waxay la hadlayeen dadka ka soo horjeeda gumeysiga waxayna dib u xasuusinayeen hogaamiyihii kacaanka ahaa ee wadankaasi Thomas Sankara laakiin iyaga oo taageeradiisu ay kor u sii kacday waxa batay walaaca laga qabo burburka dimuqraadiyadda ee wadankaasi waana tooshka ugu weyn ama waxyaabaha ay isticmaalayeen wadamada reer galbeedka ee Faransiisku ka mid yahay wadankan gumeysan jiray ee ay dhahayeen ninkan wuxuu wadanka ku qabsaday afgambi military mana ka shaqeynayo dadka iyo danta dalka hadda intaas ka dambeeyay xaaladda wadanku maalinta ka dambeysay way sii bedelaysay waxay sameeyeen isbedelo waaweyn oo ay ka mid yihiin inay abuureen fursado shaqo oo loo sameeyay dadkii gudaha ku noolaa wadanka wuxuu isku dayay inuu xiriirka u jaro safaaradihii reer galbeedka gaar ahaan kuwa Yurubiyaanka ee Faransiisku ugu weynaa oo wadankaasi saameyn xoog leh ku lahaa ilaa laga gaaray inay ceebeeyaan hogaamiyaashii wadankaasi soo maray haddaan eegno Burkina Faso waxay xorriyadda ka qaadatay Faransiiska 1960 balse xiriirka dhaqaale military iyo waxbarasho ayaa sii socday lacagta loo yaqaan CFA French ee Faransiisku uu taageero ayaana lagu eedeeyay inay astaan u tahay gumeysi dhaqaale howlgalka military ee Faransiiska sida Barkhane 2014 ilaa 2020 looma arag kuwa guulo keenay maadaama weerarada kooxaha jirku ay sii bateen dadka gudaha ku barakacayna ay ka badan yihiin ilaa 2 milyan oo qof haddaba falcelin xoog leh ayaa ka dhalatay tan iyo ninkan markii uu yimid 2013 Traoré waxa dalkiisa uu ka saaray ciidamada Faransiiska iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta warbaahinta reer galbeedka sida RFA ayaa la xiray waxaana uu markaasi u weecday dhanka Ruushka inkastoo uu sheegay inaysan la shaqeyneen kooxda Wagner kulamo dhalinyaro ayaa la isugu yeeray oo ka dhacay wadankaas ilaa 2013 wuxuuna Traoré ku dhiirigeliyay madax banaanida Afrika iyo midnimada qaaradda dad badan waxay u arkayaan iftiin u soo kacay qaaradda Afrika iyo hogaamiye uu mudan yahay in lagu daydo bishii Janaayo 2024 Burkina Faso Mali iyo Niger waxay ka bixeen daladii la dhihi jiray ECOWAS ama ECOWAS iyaga oo samaystay urur cusub oo la yiraahdo Alliance of Sahel States oo ah hogaan military isla markaana si weyn uga soo horjeeda wadamada reer galbeedka ee Faransiisku u weyn yahay hadaba dood weyn ayaa dhalatay u dhaxaysa kacaannimada iyo kala talisnimada waana waxa ay ku doodayeen wadamo badan oo ka soo horjeeday ninkan halyey ah ee u soo baxay qaaradda Afrika qaar waxay u arkayeen Traoré inuu yahay halyey qaaradda Afrika u taagan halka kuwa kalena ay ku eedeynayeen inuu adeegsanayo wadaninimo si uu u xakameeyo awoodiisa kala talisnimo dib u dhigista doorashooyinka caburinta saxaafadda iyo xariga mucaaradka ayaa muujinayay sida uu xukunkiisu uga leexsanaa dariiqii aan dimuqraadiyadda ahayn ee waqti dheer wadankaas ku soo jiray laakiin dhinaca kale ku hogaamiyay fakhri iyo inay noqdaan dad markaasi gumeysi ku hoos jira halis ayuu ku jiray isticmaalka waxa loo yaqaano pan africanismka oo ay iyadana dood kale oo weyn oo wadankan galgashay nabahantii waxay ku salaysnayd dimuqraadiyadda iyo codka shacabka laakiin haddii midnimada Afrika lagu dhiso caburin iyo kaba sharciyadeed waxay khatar ugu jiraan inay isu bedesho hanaan militarinimo iyo kala tilisnimo cusub waa sida uu soo jeediyay Faransiiska oo uu haddu leeyahay wadankii waxa la wareegay nin kala talisa waa in laga qabto isbedelka ka socda Burkina Faso waxa uu yahay hadda mid siyaasad ahaan iyo military ahaan iyo dhaqaale ahaanba wadanka u saameeyay wuxuu wadanku hore ugu jiray dagaal sokeeye kuwa ay ka dambeeyaan kooxaha xag jira iyo kuwa la aaminsan yahay inay soo abaabileen
wadamadan aan rabin in ay degaan wadankan Burkina Faso oo lagu aadanayo si gaar ah wadankan Faransiiska qaar madax banaanida ma noqon kartaa mid caburisa shacabka maxaase la gudboon Traoré wuxuu shacabka u abuuray xilligan rajo cusub laakiin sida hadda la warinayo waxay tani walaac ku sii abuuraysaa wadamo badan oo lafturkoodu qorsheynayay in ay soo afjaraan hogaaminta ninkan oo ay u arkaan mid ka hor imaanaysa danahooda gaarka Faransiisku waqti dheer oo wadankan gumaysanayay isla markaana uu haystay si dadban marka laga yimaado gumaysigii xilligii hore hadda waxa ay u muuqdeen in haddana gumaysi dadban uu ku socday wadankan laakiin Ibrahim Traoré oo ah nin dhalinyaro ah oo muddo ku soo jiray militariga wadanka isagoo ka soo bilaabay heer dable ayaa maanta hogaaminaya wadanka waxyaabo soo kordhiyay waxa kamid ah in markii ugu horeysay wadankan yar ee Burkina Faso uu samaystay baabuur ku shaqeeya electronic ama koronto oo aan u baahnayn wax shidaal ama gaas ah in lagu shubo waa arinta ka fajicisay wadamo badan oo reer galbeedka madaxweynuhu oo arintan ka hadlay wuxuu sheegay inuu ku faanayo in wax kasta oo lagu sameeyay gaadiidkan ku shaqeeya electriga ama korontadu ay yihiin wax lagu sameeyo gudaha wadanka Burkina Faso oo aysan jirin wax dibadda uga yimid hadii aad arki jirtay baabuurta electriga ku shaqeysa ee wadamada horumaray ay sameysteen sida China iyo Mareykanka iyo salahan Tesla oo hadda ah company weyn oo ka shaqeeya wadanka Mareykanka oo leeyahay maalqabeenka Elon Musk waxyaabaha lagu eedeeyo waxa kamid ah in qalabka ugu badan uu ku sameeyay yahay sida batariyada iyo waxyaabaha gudaha ku jira ay yihiin wax lagu soo sameeyay meel ka baxsan Mareykanka oo inta la soo diyaariyo on halkan la isku galgaliyo marka madaxweynaha Burkina Faso arintan la weydiiyay Ibrahim Traoré wuxuu leeyahay wax kasta oo gaadiidkan ku jira waa kuwa aan inagu samaysanay inaguna aan leenahay kuwaas oo saxaafadda loo soo bandhigay dad badanna ay arkeen gudaha wadanka Burkina Faso waxa kale ugu weyn xilligan la isweydiinayo waxay tahay sidee buu uga diyaar garoobay xilligan Ibrahim Traoré khatarada ku aadan Afgambiyo dhowr mar la isku dayay ilaa tan iyo markii uu xukunka la wareegay dhowr isku day ayaa la sameeyay oo la doonayay in xukunka looga tuuro kuwaas oo loo soo adeegsaday xubno militariya oo ku jira nidaamkiisa ama maamulkiisa kamida wuxuuna sheegay markasta in nidaam ahaan iyo ciidan ahaanba uu u diyaarsan yahay inuu iska caabiyo dadka dhaqaalaha yarsiisanaya buu yiri mustaqbalkii iyo masiirkii dalkooda waa sida uu warka u dhigayo Ibrahim Traoré waxa uu xilligan jira 34 sano waxaana uu ku soo biiray ciidanka wadanka isagoo aad u daayar qoyskiisu waxay sheegeen waligii inuu ahaa nin wadaniya nacab gumaystaha uu ugu horeeyo Faransiiska oo runtii wadanka curyaamiyay waxa la xasuustaa madaxweynaha isaga ka horeeyay in sidan oo kale meel publiga uu ku aflagaadeeyay madaxweynaha hadda jooga Faransiiska Emmanuel Macron oo si cad u sheegay in iyadoo shir jaraa'id lagu jiro intay korontadii dantay uu yiri tani waxay muujinaysaa hoggaan xumada wadanka ka jirta xilli uu u khudbeynayay Macron arday jaamacad dhigata wadanka Burkina Faso wixii inta ka dambeeyay waxa la aaminsan yahay inay arintaasi shidaal ay siisay dad badan oo u dhashay wadanka Burkina Faso oo ugu horeeyay Ibrahim Traoré oo isbedelkan weyn hadda ka sameeyay wadanka ee xiray safaaradda ay halkaas ku lahaayeen ee joojiyay warbaahintii ay lahaayeen Faransiiska ee wadankaasi joogay isla markaana danaha wadanka Faransiiska meesha ugu adeegay haddaba su'aasha ugu weyn waxay tahay arinta ku saabsan hogaamiyaasha kale Afrika maxay ka baran karaan Ibrahim Traoré waa waxa qof walba runtii uu isweydiinayo hogaamiyaasha kale Afrika waxa kaliya ay u baahan yihiin waxay tahay inay marka hore gaaraan sida dad badan oo khubaraan hadda ay ku talinayaan in la helo isku filnaansho dhaqaale waa waxa ugu muhiimsan Soomaalidu waxay tiraahdaa ama buurahow ama buur ku tiirsanow waa waxa ugu badan ee qof walba runtii uu ku fikirayo oo ah inaad heshid meel ku tiirsanaato Ibrahim marka uu jaray xiriirka Faransiiska iyo wadamadan kale reer galbeedka wuxuu xiriir la sameeyay Ruushka waana isagii tagay Moscow oo halkaas uga qayb galay kulamo waaweyn oo looga hadlayay masiirka Afrika iyo Ruushka iyadoo cilaaqaad uu halkaas kala dhaxeeyay waqti dheer waxa la xasuustaa in Ruushka iyo wadamadan kale ee reer galbeedka ama Yurubta ku yaala ay ahaayeen laba cadow oo aan isku dhaweyn xitaa Mareykanka marka wuxuu u arkay fursad weyn iyo meel uu ka heli karo kaalin dhaqaale oo weyn oo uu ku bedelo wadankiisa waxa ugu badan ee uu sameeyay ay tahay hogaamiyaasha iyo dadka Afrikaan ee uga daydaana waxay tahay in laga maarmo in la hoorsado gacmaha shisheeyaha oo laga maarmo in la weydiisto wadan kala deeq oo laga maarmo in wadan kale la weydiisto kabka miisaaniyadeed ee shaqaalaha ciidamadaada iyadoo tusaalahan hadda wadankeenu uu ka mid yahay Soomaaliya tan tusaale u soo qaadano wadamada waaweyn
haysta badda ugu dheer ee geeska Afrika anagoo haysana ay haddana ciidankeena iyo shaqaalaheena iyo dadkeena waxay ku tiirsan yihiin deeqa laga bixiyo hay'adaha ama qaramada midoobay ha ahaato ama wadamadan kale reer galbeedku ay bixiyaan marka waa aragtida ugu weyn la leeyahay ninkan 34 jirka waa looga dayan karaa oo way uga dayan karaan wadamada kale ee adduunka tan iyo markii uu afgambiga kula wareegay Burkina Faso 7 September 2020 waxa la sheegay miisaaniyadda iyo dakhliga wadanku inuu kor u kacay shaqo abuurka dhalinyaradu inay kor u kaceen isla markaana ay tan ku hogaamisay wadankii inuu noqdo maanta wadan dhaqaalahan isku filan gudahaan dawada intaas ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarkan ku eegnay sida baraha bulshada iyo khiyaanooyinka dadka reer galbeedka Afrika ay isu bedeleen iyaga oo soo jiidaya macdanta dahabka ee Burkina Faso oo loo arkayo xilligan fursad weyn oo wadankaasi ka jirta waxaana la leeyahay Ibrahim Traoré sida ugu habooneed ayuu xilligan wadanka u wajahay intaas ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena caawa iyo dunida intaan kulmi doona mar kale waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan barteena YouTube si aad mar walba la socotaan wararka iyo barnaamijyada cusub ee aan halkan idiin soo gelino maalin walba iyo habeen walba. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ahay Yusuf Abdishire.